Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawada meel walbo aad naga daawanayso. Kusoo dhawaaw sheekadii waa suge iyo warsame socdaalkii 30 maalmood qaybteedii 6aad. qaybta shanaad sheekada waxay inoo joogtay kala xukun qaadashada iyo guud ahaan nidaamka meesha ka socda. wuxuu warsame maalintaas ku soo xasuustay beydad ka mid ah gabaygii xaaji aadan axmed afqalooc oo ahaa qaybta 6aad waxay ku bilaabmaysaa xar baa lagu kasbaa gobonimo laba xaniyoode xukaan daacadiya waxay rabtaa xaq iyo miisaane midba midka ku xigo waa inuu ka xukun qaataaye cadligu waa xayaatada dadkiyo xaqa ilaahaye ninkii ku xadgudbaa waa cadow dowladdii xadaye. warsame asagoo ku dheegagsan daawashadii cayaarsiinta ciidamada oo aan dhago iyo indho kalaba lahayn ayuu arkay dirir oo korkiisii taagan. halkaas ayayna iska raaceen kadib markay salaani iswaraysi gaaban si farxad ku dheehan tahay isu dhaafsadeen. sheekadoodii kale ka sokow inta ay u sii socdeen gurigii dirir warsame wuxuu arkay jidad iyo daaro fara badan oo uusan magaalada ku ogeyn. markii uu war dambaysay dirir ayaa duqi si wanaagsan ugu sheegay sidii ay howlahaas u qabsoomeen iyo qorshaha kale ee meelo kala duwan haatan ka socda. waxyaalaha loogu sheekeynayay waxay duqa ku beereen su'aalo ah inay reer magaalku wax iska dhidhisanayaan oona soo jeedin inay wax u qabtaan reer miyiga sida baahida ka taagan xagga daaqa daawada iyo biyaha xoolaha. aragtidiisa reer miyinimo ka sokow guud ahaan warsame aad ayuu amuurtaas u ammaanay wuxuuna u soo daliishaday mahmaayo ahayd arad waa dan uskagna waa duqnimo. dirir ma garan ujeedada maahmaahda ka dambaysa laakiin warsame ayaa u fasiray oo yidhi dirirow wakhtigii gumaystahana haystay dhibaato kastoona qabsataa waxay ahayd dan laakiin maanta oo ay dowlad Soomaali inoo taliso haddaanan wax qabsan waa duqnimo. si wanaagsan ayuu dirir markaan u gartay ujeedadii mahmaahda wuxuuse jeclaystay inuu oraahdii duqa meel ka saxo wuxuuna yidhi warsamow maxaad u tiri maanta oo ay dowlad Soomaaliyeed noo taliso oo aad u dhihi weyday maanta oo aan dowlad nahay. warsamana wuu qaatay ra'yigaas asagoo cudurdaar ka dhiganayo reer miyinimadiisa. raggii waxay socdaan iyo sheekahayaanba waxay yimaadeen aqalkii dirir oo ku yaala degmada Holwadaag. dirir wuxuu qabaa haweeney aad u wanaagsan magaceedana la yiraahdo deeqo waa afar reerkeeda ka adag raggeedana u garab ah. wuxuu dadku u aqoonsan yahay inaan lagu gaarin edeb iyo aqoon wanaag waxayse dadka hoos ahaan u sii yaqaana ku dhaliilaan inay si xad dhaaf ah ilmaha u disho markay canaananayso. warsame markuu 2 maalmood nastay ayuu subaxdii dambe wuxuu aaday nin kale oo ay walaalo yihiin lagase wanaagsan yahay dadkuna ay ku tilmaamaan inuusan xilkas ahayn. intii uu sii socday duqa wuxuu niyadda iska lahaa talow maanta maxaad kala kulmi doontaa ninkan asaga ah laakiin khayrsaadsigiisa ayaa badnaa oo wuxuu duqa maalintaas walaalkiis ka sugayay deeqsinimo aan hore looga aqoon maxaa yeelay muddo dheer ayay ismoogaayeen. warsame wuxuu intaa niyadda uga sii luuqaynayay beydadkii ugu dambeeyey gabaygii oo u tirshay markuu u yimid ina cabdi garaad yuusuf oo aabihii oo hore abaal ugu galay. beydadkaas waxay ahaayeen allankoodsha oo wiilkuyo agab la'aan sheegan afka wuxuu ka doonayo wuxuu uurka ka raba siiya iniq u dheereeya. galabtii dambe markuu duqii soo laabtay ayuu dirir wuxuu weydiiyey bal wuxuu kala kulmay ninkii walaalkood ahaa. warsame wuxuu goc horta ka furfurtay ku toolanayay aqalka bannaankiisa dirirna agtiisa ayuu kabihii askarta ku casaysanayay wuxuuna su-aashaas ugu jawaabay gabaygii xaaji aadan afqalooc oo ahaa ninkii uurka kaa neceb wejiga waad ka garataaye agmarkiiyo daymadaba waa lagu ogaadaaye inkastoo aqoon kula yahay aad uur la tahay hooyo axmaqu waa cadowga hadduu aabbaha dhalaye. dirirna si wanaagsan ayuu gartay inuusan warsame xoolo iyo xushmad midna inuusan ka soo helin ninkii asaga ahaa. amuurtaasna lama yaabin maxaa yeelay horay ayuu ugu malaynayay. intaas kadib waxay galeen sheeko kale. dirir ayaana wuxuu walaalkiis warsame u sheegay inuu damacsan yahay in qur-aan loo akhriyo maxaa yeelay ayuu yidhi intaas waxay noogu dhammaaday qaybtii 6aad ee sheekadii waa suge iyo warsame socdaalkii 30 maalmood.